وليجا exercise علوش السماء 6 باك وما soo baxayaan ba caloosh ka ma dhacayso dad badan oo kale waan ku soo caawinay miisaan kordhiyaan inay miisaan jaraan marka laba talaabo kaliya tad u baahan inaad caloosha ku jirtid laakiin horta waayo gymka aan galay macallinkii joogay baa igu yiraahday exercise-na caloosha samee sanad ban sameeyay sanadka wax allaale wax farqiya oon arkay ma jirin ayaan arinta sii baaray oo soo ogaaday habab kala duwan inay jirto oo aan ahayn exercise-da caloosha kaliya ta oo video nimka kugu sheegi doono exercise-dan inaad isku soo qaadidiyo inaad lugaha qaadidiyo dad bay faa'iido u leedahay waa dadka aan wax baruura aan ku bilaabin sababta gideer baruura kama qarinayo muruqyadii halka hoose ku jiray laakiin qofkii kale faa'iidada u leedahay aad iyo aad bay u yartahay haddada uu taagan yahay ilaa layer ka faadkee ka horeeya aad meesha ka saartid inagu ma doonayno bodybuilder inay noqono daacad marka la hadlo inagu waxaan doonaynaa inaynu jid hagaagsan oo macquulad eegi karsid maalin walba muraayada isku daaweyn karsid inaad dhisno Soomaa body fat yar oo hoose ilaa 15% ilaa 12% meelaha inta ugu caafimaadka badan ee ugu hooseyseed ku arki karsid abs waa intaas 5% 8% meelaha aad gaadid anoo wasbaqtiin saweeyaan macnaheedu marka dumarkana waxa uu wanaagsan meelaha inay soo gaaraan 20% body fat dumarku baruurta wax badan bay uga baahan yihiin oo estrogentoodii hormonadoodii oo dhan ba ku xidhan garanaysa taasaad ku arkaysaa muruqyadii calooshiina meesha si fiican uga baxaysa siiro macaan uga baxaysa hadaba faadka ka sareeya 6 baagi see meesha uga saari karnaa sin u gaarna body fat yar oo hoose oo macquula isqalajintiina ma iyada erigtida qof kale exercise kan wajiga sameysada baruurta uga saartid waxyaabahaas amba gacmaha saad uga saartid inaad sidaan tiraahdaa adu waxyaabo adhigay waxan circuska joogay clown kale ilaa maaragtay waxa yar sanka casle weeqay idhaahdee dadka oo xaraabadeeya jidhku sida caadiga wax badan uu gubaa imikada aad fadhidid waxa laga yaabaa inuu wadnahaaga qaadanayo calorie dheefshiidkaaga inuu calorie qaadanayo maskaxdaada shaqaynteedu inuu calorie qaadanayso inta aad dhegeysanayso waxyaabahan oo ka fikirsid hababkaad u sameyn lahayd waxyaabahan intaas calorie badan inaad qaadanayso inaad dhaqdhaqaaqsid baa laga yaabaa inaad lugahaaga dhaqdhaqaajinaysid baa laga yaabaa in faraha ku dhaqdhaqaaq haddaad cuntadaada yareysidna dee waxyaabahaas ayaa shaqayntoodu wax ka dhimayaan jidhka uu ilaashanaya energy-gii yaa uu isku dejinaya baruurtii wuxuu soconaya yani kaa bixin tan u badhaysataa cuntadii hadduu yareeyey baastarkani dee waa inaad is ilaaleysaa taasuu odhanaya jidhkii adoo filay inay wax kuu faa'iidaysmaan oo baruur inaba caadi ahayn ee kaa dhacdo sababtaa cuntadii aad baad u yareysay ayaa laga yaaba inaad dhaqaaqinba uu miisaankaaga aanu dhaqaaqinba taas waxa weeyaan metabolism wax la idhaahdo metabolismku waxa weeyaan waxii kuu saamaxayay adigoo halkaagaa fadhiya dad metabolismkooda badan yahay waad aragto wax walba cunaya oo haddan miisaan aanu ku kordhin metabolismkaas waa habkuu jidhku u dheefshiiday cuntadii haddaad xoog u yareysid dee metabolismkaaga slow buu noqonayaa marka adigoo cuntadaadu yar tahay ayuu kana cunto badan cunayaa haddana miisaan ka go'aya taas waxa ku sheegaysaa inaan ku xidhnayn cuntadu kaliyaata oo cuntadu way ka qayb qaadanaysaa haddii cunto badan cunaysid of course waan isla odoognataa laakiin cuntadaada caadi ka dhig yani 3 waqti oo caadiya oo wax macquul ah oo borotiin u badan haddaad cunaysid alxamdulillah waa ku jirtaa yaa waad ka haysaa badaa intaa ka badan ma doonaysid uma baahnid anaa kuuba laakiin taad u baahantay waxa weeye inaad activity-gaagii amba dhaqdhaqaaqaagii aad iyo aad u badisid iminka dadkii hore ood garanaysaa uu yeesheen dadkii kasii horeeyey in ay cuntadoodu aad u badnaayeen hilibkooda uu badnaa subagooda uu badnaa cuntaday maalintii dhammayaan caanahay maalintii dhammayaan aad iyo aad buu u badnaa laakiin iyadoo kaaloriga iyo cuntooyinkaa badan cunaya haddana maxaa u saamaxaya inaanay miisaanku ku kordhin sababtaa dadkan dhaqdhaqaaqooda ayaa aad iyo aad u badnaa inaad wax yaro culus qaadid maalintii waa waajib yani waxaa culus yaanu noqonba biro jidhkaaga ba ahaado inaad xoogaa yaro lugaysid ilaa 10 kun oo talaabo maalintii qaadid waa waajib iyaduna labada haddaad joogtaysid haddaad samaysid oo keliya tana maaha haddaad joogtaysid sanad 2 sano 3 sano noloshaadii caadigeed ay taa noqoto. At least what the science shows that unless people get about 5 or 6 sets of reasonably hard work of resistance exercise per muscle group, that they're going to be losing muscle over the course of their lifespan. marka dee waa karaahina cuntadii xoog u yareysid oona dhaqdhaqaaqii aanad xoog u badin waxaan rajaynayaa midhaas leer fahanay marka ay taas u badoonay horta inaan maanta kula wadaago waana in yar ka bacdi